Salaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Asxaabta aynu jecelnahay oo kusoo dhawaada janalkeena Kaxuruw Fakhriga. Hadduu eebaweyneed maanta waxaan idiin soo gudbinayaa scratch mango sida loo keydiyo cambaha asoo cabitaan ahaan waqti badanna aad u isticmaali karto. Meeshaan waxaa noo yaalo maasha Allah cambo taasoo aan mar waliba sidii cabitaanada fiintada camal sidaan u qasanay cabitaan aan u isticmaali doonaa anaga gacanteena ku sameysanay. Meeshaan waxaa noo yaala 3 xab cambo ah, qaando halfkeed cusbo ah, 1 litir iyo half oo biyo ah iyo kiilo iyo bar sokor ah. Meeshaas waxaa noo yaalo inta cusbo noo taalo biyo sokor kiilo iyo bar ah sida 3 xab cambo ah. Inshallah intaas ayaan isku soo jarjaran doonaa hadduu eebidmo. Marka waa soo wada jarjaranay cambahii dhamaala waa soo jarjaranay hal weel isku keensanay. Waxaan soo qaadanaynaa makiinada cabitaanka lagu shiido cambaha kaligiisa biyo lagu darin wax kale la wadaajinin lagu daraa kiskisa ugu darsanaynaa sababtoo ah hadda hal mar ku wada dareynaa dhahno waxaa laga yaabaa in makiinada naga ciladoodo marka kiskisa u shiidanaynaa biyo waxba kuma dareen iyadoo sideeda ahaan shiidanaynaa ayaga dhamaala saana ku dhameynayna oo biyo ku dareen wax kale ku dareen cambaha kaligiisa shiidayna waa ka gedinaynaa haddana cambaha kale inta soo qaadana kaligiisa shiidayna waa ka gedinaynaa maasha Allah sagadan adeeg rasiin oo noo noqday qaybta kale inta siigna 3 mar camal shiidnay hadda qaybta u dambeysay shiidanayna kadib marka soo shiidan waa gedisanayna haddana saasoo rasiin noogu yahay oo noogu diyaarsan yahay biyo mu soo dareen wax kale kuma soo dareen cambihii la jarjarnay waa soo shiidnay baaquliga ku soo shubanay markana cambaha kadib waa soo qaadanaynaa dhamaantooda digsiga dabka saaranaynaa kadib sokorta ku shubanaynaa kadib sokorta marka ku darno biyo ku dareynaa litir iyo barkii biyaha ku dareynaa litir iyo barkaas biyaha intee noogu soo karkarayna u sugeena waa dabooleynaa qaandada marinayna bacdeen waa dabooleynaa si iyadana noogu dhalaasho biyaha iyo sokortana isku dhex galaan kana had xoogo way soo yar burburtaa qaandada marina sababtoo qaandada daagin waxa waa sokor digsiga hoostiisa ku dhagay marka ma doonayn anaga inay digsiga nooga dhagto sababtaas awgeeda hadda aan qaandada wax yar kadib u marinayna maasha Allah hadda indhiisu yeelno way soo budburtaa dhinacyadana waa ka soo banaanaatay way soo karkari rabtaa markay soo karkareysane saasay soo noqonay bacdi hadda way noo soo karkartay oo saa karminay noogu soo karkartay waxaarna marka anaga inay isku dhalasho kadib cusbada ku darsanayna oo qaanda halfkeed ahayd marka ku darsano saasay noogu walaaqmay wax kale inta mala wadaagayno markay saas noogu walaaqmanto saddex gasho cusbadii sokorta iyo biyihii kadib waxa u sugaynaa ilaa iyo xoogo oo qaandada marinayna si isku sii dhex gasho kadib maasha Allah ku dhaawalay wixii ku ooli kartaa waqti dheer aad isticmaali kartaa adoo cabitaan ahaan u isticmaasad waa kana ku soo darnay cambihii ku soo darnay
cambihi ku soo darnay waa ku walaaqaynaa waa isdhexgelinaynaa cambihi ku walaaqaynaa ilaa iyo muddo waa ku soo walaaqaynaa. Wallaahi maasha Allah waqti dheer ku oo uma baahanaysid cabitaan inaad soo gadatid mas camba aad soo gadatid shiidid wixii waxaas dhan ka qaadanayso intaada mar walba ka sii yar ka shubanay ka sii yartaas biyo iyo waxa ku darsanay baraf. maasha Allah iyada macaan dhadhankeeda ma weynaysid qarashkii mar walba ka bixi lahaayna mas'aliyada camba la'aanta ay jirto la sameystaa xilliyada oo vegetable fruitka uu yar yahay xilliyadaas la sameystaa si aad ugu moodid. maasha Allah adoo gurigaaga joogo si fudud ku sameyso cabitaan waqti dheer ku joogaayo waxa ku bixinayna waxa markaa shiidayna si fiican ma noogu shiidin qaybta dambe waxyaabahaas oo ku soo haray marka daadis waa had u shiidayna kadib waa ka shaandhaynaynaa maanta waa biyo ku jirin hadda waa ka shaandhaynaynaa dhiilayna taan nooma saaka deesmilhin hadda biyo ku darnay ka baac saasi ku soo baxday. hadda waxaa ku soo shubanaynaa watarkii aan u diyaarsan inaan ku keydsano ku soo shubanaynaa watarkaas kiskisa u soo shubanaynaa furjalaata ku shubaynay furjalaataha mar walba soo darikaatiis culays xoogan uu noqotay kadib waxaan ku asanay inaan si caadi soo buuxino. maasha Allah waa kana watarkan dhan waa buuxsanayna meel aad dhiganayna maalin walba si yar ka isticmaalayna. maasha Allah waa kana hadda watarkan uu buuxsan ma xiranayna meel aad dhiganayna waa nadiifinayna korkiisa ka bacdi meel aad dhiganayna. maasha Allah waa ka heli doontaa duweebeed ma ka soo faa'iideysa soo samee isku soo day. hadda waa kana markis yar oo waxa isku darsanayna biyo caadi maasha Allah waa dhiminayna. wallaahi maasha Allah inta ay mid la ku kulmi doon waxaan eegin taagan sidaas iyo amaana Allah.